maanta oo kale guud ahaan dunida islaamka waxaa si xoogan loogu dabaaldegaa munaasabada ciidul adxaa oo ka mid ah shacaa'irta diinteena islaamka lagu yaqaano. magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa isugu soo baxay masaajida iyo goobaha fagaaraha ee lagu guto salaada ciida. boqolaal dadweynaha u soo kici timay gudashada labada ragcadood ee sunna ahi. munaasabada waxaa kala qaybgalay dadweynaha xubno ka tirsan Somaliland oo ay horkacayaan wasiiru dowlaha beeraha, xogayaha guud ee golaha wasiirada iyo waliba gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir. waa kuwan iyagoo salaamo iyo hambaliyo u marinaya hawada shacbiga. muslimka guud ahaan meel kasta joogaan gaar ahaan reer Somaliland si khaas ah dadweynaha reer Laascanood iyo gobolka Sool oo aan munaasabadan ciidda maanta la joogno kala qayb galay. waxaan aad ugu faraxsanahay Ilaahay si nabad ah inuu ciidda noogu dhameeyay magaalada Laascanood dadkuna ay faraxsan yihiin soo hambalyeynayaan. ilaahay waxaan ka baryayaa acmaasha wanaagsanaa iyo cibaadadii aynu soo gudan Ilaahay inuu naga aqbalo. inta xajiyaysa ee maanta rukniga waajibaadka islaamka gudanaysa Ilaahay inuu ka aqbalo. dhammaan inta xanuunsanaysa meel kasta joogaan ee muslimkaana Ilaahay caafimaad inuu siiyo. runtii duruufaha adag bay maanta dunida muslimka ku jirtaa. Ilaahay inuu dhibaatada iyo xaaladaha qalafsan ee ay ku jiraan Ilaahay inuu ka dulqaado. halkan aan ku hadlanaa waa gobolka Sool caasimadiisa Laascanood. maanta waa maalin barakaysan oo dadku aad u faraxsan yahay. nabadgelyo buuxda ayaa gobolka ku sugan yahay. gaar ahaan magaalada Laascanoodna aad iyo aad buu fiican tahay. waxaan halkan hambaliyo ciidda ku saabsan uga dilayaa shacabweynaha islaamka ama shucuurta islaamka meel kasta ay joogaan. waxaan leeyahay soonteen iyo maanta aad ciidaysaan oo xiyada Ilaahay ka aqbal camalka. waxaan gaar u salaamayaa shacabweynaha reer Somaliland. waxaa la ciidiisa barwaaqo ku gaara. waxaan gaar u salaamayaa shacabka reer Laascanood. waxaan leeyahay idinkuna ciidada kala barwaaqo ku gaara. Ilaahay waxaan ka baryayaa cid kasta oo baahan ama cid kasta oo bogta ama cid kasta oo dhibaato haysato Ilaahay ka dulqaado. ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto gaar ahaan ummadda reer Somaliland waxaan ugu hambalyeeynaa ciidka iyo farxadda maanta baan ugu hambalyeeynaa. waxaan ku sugannahay magaalada Laascanood gobolka Sool. dhammaan shacabka reer Laascanood waxaan labaad ugu hambalyeeynaa ciidda iyo farxadda ay maanta ku ciideen. waxaan leenahay sanadkiisa ku gaara caafimaad iyo barwaaqo iyo nabadgelyo. waxaan ummadda muslimiin kasta meel kasta Ilaahay uga baryaynaa in uu caafimaad iyo nabadgelyo uu siiyo. muslimku waa dhiban yahay. waxaan ugu ducaynaa Ilaahay inuu ka dulqaado muslimiinta meel kasta ay joogaan culeysyada haysta. maanta waa maalin barakaysan. waxaan dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan hambaliyo ciid u dirayaa. maanta markaa waa maalin weyn. waa maalin jimca iyo ciid ay isbarkan yihiin. wax aad Ilaahay loogu xamdi noqo. ummadda muslimiinta ayaa taagan Ilaahay iyagana dambigooda ha dhaafo xujaasta ah. kuwii soo sameeyay Ilaahay dambi dhaaf maalinta ay soo sameeyeen ha uga yeelo. Xamza Raadey, RTN, Laascanood.